هنا فايسة محمد عبدي oo ah gabadh 15 sano jir ah oo xaalad caafimaad ugu jirta isbitaalka Digfaar magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay gabadhoodu kufsi iyo dil ugu geystay askari ka tirsan ciidamada badda Puntland kaasi oo lagu magacaabo Qaadir Warsame Axmed Maxamed Cabdi Xayi oo ah aabaha Faaiisa dhalay ayaa sheegay in gabadhiisa iyo ninka dhibta u geystay ay ahaayeen sheeko wadaag kadibna 27kii bishii Oktoobar ballan ay yeesheen kadib uu isku dayay inuu farxumeeyo taasi oo iska caabin kadib وحبضه uga dhuftay wajiga iyo xubinta taranka awalan marka ugu horeysa bastooladu haysay wajigu kaga dhuftay si uu marka hadaba dantii uu doonahay uga gaaro way suurtagali weyday markay taasi u suurtagali weyday wuxuu marka hadaba ku talagal ugu dhuftay qaybta ilma galeenka iyo macdanta xudunta halkaas uu rasaastay marka hadaba kaga dhuftay xabada fara badan kaga dhuftay waxayna xabadahaasi ka baxeen qaybta marka hadaba midigta ee arxaantay ka baxeen gabadha sidaas ay xabadu ugu dhacday anigu aabaheed baanahay arinta waxa ka warhayay markiiba rag maqaaxi meeshii fadhiyay yaa marka hadaba hawshii u kacay gabadhii oo meeshii taalabay soo qaadeen waxay keeneen meherad bibita oo meesha ku taalay gabadhii waa la wareystay markii la wareystay ehliyadii wixii meesha joogay iyo wixii islaam ee waxgalad ahaa halkii ugu yimid Maxamed Macalin Xasan oo adeer u ah gabadhan dhibanaha ayaa sheegay ninkay ku eedeynayeen falkan geystay ay qaraabadiisu ka saareen magaalada Boosaaso dhacdadaasi kadib markii uu gabadha dhibkan ku sameeyay si caana loo soo bixiyay meeshii uu joogay waa laga soo masaafuriyay dadka qaraabadiisa ka soo bixiyay waxa la keenay Garowe waa laga soo gudbiyay gaalka ayaa la keenay lagu xaqiijin karaa hadda ninkan uu gabadha shukaan si jiray waa la yaqaan gaarigiisana waa la yaqaanaa nin la og yahay oo la yaqaan waa in nin dhumaal ku jira ma ah xaaladda caafimaad ee Faaiso ma aha mid wanaagsan waqtigan waxaana loo soo qaaday magaalada Muqdisho oo ay hadda ku jirto maalinta saddexaad waxayna codsanayeen eheladani inay helaan cadaalad isla markaasina garsoorka la hor keeno ninkan ay ku sheegeen Qaadir Warsame Axmed dhaqaatiirtu xaaladeeda markay fiiriyeen waxay noo sheegeen qaybta kaadi mareenka iyo qaybta marka saxaradu labadaba inay go'een marka hadaba tuubooyinku marka hadaba waxay saxarada ka qaadahayaan kalida kaadidana waxay ka qaadahayaan halkaas guubeerkay ka qaadaysaa tuubadii dhiiguna dhinac kale ka qaadayaan ilaa saddexda tuuba ku rakiban gabadha iminka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo isbitaal ku booqday Faaiso ayaa maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ahba waxay ka codsadeen inay ka qayb qaataan cadaalad raadinta Faaiso inaan ninkaas oo kale la qarsanin ayaan ka codsanaynaa maamulka iyo deegaanka iyo dadka dariska la ahba in cadaaladda la hor keeno laga jaasiyo ama lagu ciqaabo wixii uu gabadhaas ku sameeyay Soomaaliyeed biri adinku idinku sameeynaya annagu nagu sameeynaya qof kasta uu ka gaaro ku sameeynaya ma ahan arin la qaadan karo mana ahan wax bini'aadanimada islaamnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed ku jirto in gabar walaashiisa ah intaas tacadiya uu u geysto tacadiyada noocan gabdhaha Soomaaliyeed way la kulmaan meel badan bay kala kulmaan bulshada Soomaaliyeed dhamaanteed waxaan ka codsanayaa ninkii idaas taqaano magaciisa la sheegay in la soo qabto loo soo gacan geliyo maamulka Puntland tan kale waxaan dawladda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in gabadh walaasheena iyadana gacan siiso caafimaadkeeda laga warhayo baarlamaanka Puntland ayaa bishii August 2016 meel mariyay xeerka ciqaabta kufsiga iyadoo maxkamadda degmada Goldogobna bishii January 2017 xukun ay ugu badan tahay 10 sano oo xarig ah ku riday 5 dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa inay gabar ku kufsadeen deegaankaasi